Dowladda Eritrea ayaa qiratay in ciidamadeedu ay qayb ka qaateen dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya, laakiin waxay dalka Eritrea wacad ku mareen inay la bixi doonaan ciidamadooda xilli uu sii kordhayay cadaadis caalami ah. Qiraal cad oo ah kii ugu horreeyay ee kaalinta Eritrea ay ka qaadatay dagaalka gobolka Tigray ayaa lagu sheegay warqad uu daabacay habeennimadii Jimcaha wasiirka warfaafinta ee dalkaasi oo ay qortay safiirka Eritrea u fadhisa xarunta qaramada midoobay una dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bishii November ciidamo u diray gobolka Tigray si ay hubka uga dhigaan una xidhaan hogaamiyayaashii xisbi siyaasadeedkii gobolka maamuli jiray ee TPLF. Dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ayaa muddo bil ah waxay beeninayeen in Eritrea ay ku lug lahayd dagaalkaasi, taasi oo ka soo horjeeda marag furka ka imanaya dadka deegaanka, ururada bulshada, xuquuqda aadanaha, shaqaalaha gargaarka, diblomaasiyiinta iyo xitaa qaar ka mid ah saraakiisha rayidka ah iyo militariga ee dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyntii bishii Maarch wuxuu qiray joogitaanka ciidamada Eritrea maruu la hadlayay xildhibaanada, waxaanu ballan qaaday in ciidamada Eritrea ay ka bixi doonaan gobolka Tigray. Deeq Ismaaciil Xaashi, wararka telefishinka Bulsho. Ma ogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, moobaylo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung, dahab iyo dalxiis hoteelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtal, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtal uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga, kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.